اوكي انا مر labaad hadalkii hore ee iga qabiyada ahaa aan dhameystiro anigoo maxamed faarax xareeda bishu caawa ay tahay October 27keedii waxa kale oo aan caawa moogtay gabagabeynay qaadaan ururintii isbitaalka Bugaas Mustafa Xareed Hospital taasoo aan guul ka gaadhnay faahfaahinteeda iyo faallada qaadaankana waxa ka warrami doonta Sara Daahir anigu se waxaan jecelahay in aan halkan uga mahadnaqo guud ahaan dadkii hawl ama deeq ka geystay qaadaanka Xariirad iyo Bugaas Mustafa Hospital waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa gabdhaha badidoodu halka fadhiyaan qaarna maqan yihiin ee hawsha u guntaday oo ay hormuud ka ahaayeen gabdhaha Saara Dhimbiil Sigad Nimco Muumin Dahabo Muumin Fuusiye Maxamuud Amina Ahmed iyaan ka tagay Saara Daahir oo halka ka hadli doonta waxaan kaloo ku darayaa hawshu oo tawakaliye kama ayna socon Toronto iyo Mareykankaba hawsha aad baa looga qayb galay waxa magaalada Toronto aad iyo aad noo taageeray hawshana nooga fulinayay Umar Awaale iyo xaaskiisa Xawa Cabdilaahi Kinsi Saban iyo Jamaal Saban Kaahiye Mareykankana Dallas iyo Houston waxa halka isku dubaridayay qaadaanka Mareykanka lagu ururiyay Xasan Riyaale oo dhawaan wixii halka ay ku ururiyeen u diri doona Deeq Saciid oo nooga wakiila isbitaalka dhismihiisa ka socda Xariirad oo Hargeysa ku sugan waxa hadda hadalka uga baxaya Sara Daahir oo xoogay faalaha ka bixinaysa hawshan maanta guusha ka joogno oo qaadaanka Bugaas Mustafa Hospital sida uu bilaabantay hawsha sidii loo galay iyo gabagabo guusha laga gaadhay Sara ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين magacayga aniga waxa la yiraahdaa Sahra kulli hadalka ku dheeraan maayo intii badneed waxa yiri Maxamed Xareed sheekha iyo maaragtay marti sharafta aad ayaan u salaamayaa cashadan inaga soo qayb galeen mahad ballaaran baan u soo jeedinay Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala in yar waxaan ka hadlayaa ururkan isaga haweenka u badan ee meesha jooga waxay ku hawlanaayeen muddo dhow sidii loo dhisi lahaa isbitaal ku yaala degmada Xariirad dawladda Soomaaliland isbitaal dadkaas meesha deegaankaas oo baahi dheeraad ah u qabay isbitaalka inkastoo meel kasto ay bulshada magacan dadkan ka soo jeedaan ah oo Itoobiya iyo Soomaaliland iyo Djibouti ay dhibaatadu iska jirto haddana meesha iyada ah waa meel ay dhibaato caafimaad aad uga taagantay waxbarasho marka anagu waana soo arkay anigu runtii waana meel aan ka imido aan muddo dhow ka imiday baahida dadku qabeena waxaan wax badan anigu xogogaal ka ahaa marka waxa anaga naga horeeyay urur UK ka aasaasmay oo Ramad la yiraahdo kuwaas markii ugu horeysay markii website-ka la soo galiyay gabadh umulugu dhimatay dhakhtar la'aan Xariirad markii laga qaaday iyadoo ilmihii ka soo baxay uu la soo baxay lug laga qaaday Xariirad loona waday masaafo 80 kilomitir oo u jirta Boorama ama Dirdhaba ay gudboonaadeen gabadhiina ay dhexda ku sii geeriyootay marka dadkii ugu horeeyay ee arkay dhibaatada iyada ah ayaa website-ka soo galiyay xaaladii haweeneyda ku dhacday iyo bulshada halka ku nool wixii dhibaato haysatay waxay sameeyeen talaabadii koowaad tii labaadna anaga ayaa sameeynay marka kulay wax badan waan qabanay wax badanna waa qabyo waxaan sheekha iyo dadka naga soo qayb galay meesha u sheegaynaa inaan hawshan qabanay wax qabadkeygii maanta gacanta ku hayno lacag dhan $10,000 Mareykanka ah ana rabna inaan dirno hadii xagga Rabbi laga helo waxaan u maleynayaa waa wax ku deesho mudan oo dadku maaragtaanay markuu qof dhibaataysan arko qofka kale ee maskaxdiisu shaqaynayso inuu isna talaabada qaado umadiisa wuxuu qabtay cid doonta marka ha ahaato umadu dadkii dhulkeeni deganana ay baahi caafimaad iyo waxbarasho la'aan iyo biyo la'aan intuba ay jiraan imikana sanadahan isdaba yaala ay biyo la'aan ay asiibtay
intii ka horeysay roobabkii guga ee sanadkan ka da'ay taasoo ku keentay dadkii baaba xoolo iyo duunyo iyo maalba iyo beeraba marka dhibaatada dhacday darteed waxaan u malaynayaa haweenkan lacagta ku uriyay iyo dhalinyaradu wixii nagala soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin annaguna waxaan leenahay bulshada inteeda kale waa wax la iskaga daydo beesha ciisaha ama beelaha kale ee dhulka degay ee dadkeeniya waxay u baahan yihiin dadku qurba joogtii inay sidaas oo kale talaabo u qaadaan ay ku daydaan dadkan qurbaha jooga ee san u dhaqaajiyay hawshan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa isbitaalkii loogu magac daray Ugaas Mustafa ee xiriir ku yaalay hadda waxa laga yaabaa inuu dhaqaaqay insha Allah inta dhiman waxaan rajaynaynaa inaan dhamayno annaga iyo dadka kale ee marka dhageysan doona ama daawan doona maaragtay maqaalada ka soo baxa wax qabadkan dadkan ay wadaan insha Allah dhamaantiina waan idin wada mahad celinayaa hablii hawshan geystay ee soo abaabulayna aad ay u mahadsan yihiin dadka caawina dhageysanayna aad bay u mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh